barnaamijkan waa dayactirka afka Soomaaliga marka taxanihii koowaad ayaanu idin bilaabaynaa. waa bandhiga cilmi baadhista qormada saxa iyo toosinta adeegsiga naxwaha ee afka Soomaaliga. barnaamijkan waanu ka diyaarinay cilmi baadhis dheer oo aanu ku samaynay afka Soomaaliga. waxaanu ku soo ururinay waxyaabo badan oo inoo fasiraya ama inoo sharxaya sidaynu uga hortagi lahayn ama u xallin lahayn dhibaatooyinka afkeena haysta. barnaamijkan waxaa idiin soo diyaariyay jaamac cali cismaan iyo axmed maxamed yuusuf. muddo badan ayaanu wadnay, haddana waxaanu ku guuleysanay inaanu bal soo ururino qaybihii aanu ugu talagalay inaanu barnaamijkan bal ka baahino. hadii sharaafkeena markaynu ka hadlayno waxaynu ka bilownaa ama dhibaatada aynu sheegnay ee haysata ay tahay ereyada aynu nidhaahno gabar iyo gabadh. waxay dadkeenu in badan isku qabsadaan inay gabar khalad tahay, gabadh khalad tahay. hase ahaatee markaad u dhaba gasha ama sharaxa aanu bixinay uu tilmaamayo ama aragtidaanu ka soo saarnay, waxay ku tusaysaa in labaduba ay sax yihiin, laakiin aynaan inagu aqoon dhawaaqyada afkeena ku jira iyo siday u kala baxaan ama u sii kala jiraan. haddaad u fiirsato afafka adduunka marka la tirinayo ama la eegayo siday u kala dhawaaqyo badan yihiin, afafka ugu badan waxaa ku jira kuwan hadda aynu arkayno ee shanta ah, kuwaasoo leh baawalada ama shaqalada ugu badan. haddaad eegto afka Soomaaligu waxa uu yahay 9 shaqal oo gaagaaban iyo 20 dhaadheer oo isku noqonaya 29. waad aragtaa intooda badan oo afkan Daanishka marka laga saaro isaga dhawaaqyadiisu ay isku sii jirjiraan uu ka badan yahay kuwa adduunku ku tilmaamo inay ugu shaqala badan yihiin. haddaynu eegno marka la isku daro dhawaaqyada shaqalada oo dhan iyo kuwa aynu ku tilmaano diphthongska ama af Soomaaliga shaqal huwanka sida shaqalada ay iyo aw iyo shaqalada kala dhacay ee la kala garto markay dhacayaan. marka la isku daro afkeenu 30 ayuu leeyahay kuwaasa iyo 29 shaqalada caadiga ah, kuwa dhaadheer iyo kuwa gaagaaban. waxa uu noqonayaa markaa 59 afafka ugu badan adduunka la sheego ee dhawaaqyada shaqalada siday doonaanba ha ahaadaan. waxa ugu badan 45 ka cilmi ahaan markii la baaray ay u arkeen, inta kale waa wax kasii hooseysa. Soomaaligu inuu xoog uga badan yahay weliba kaa laftiisa oo 59 uu leeyahay shaqalada si kastoy ahaadaanba. waxaa jirta shibanayaasha markaad u fiirsato afafka qaar 47, 39 ilaa ay soo socdaan 28. afka Soomaaliga intaynu naqaano ama aynu ku xisaabtano 22 ayaynu sheegnaa. way jiraan inay noqonayaan 25, 27, 29, 30 iyo 35. waa haddaynu eegno sida ay u jiraan markaynu raacno. guud marka xaqiiqada cilmi baadhistan markaanu eegnay afka Soomaaligu waa af aad u daaweyn. wuxuu ka madax bannaan yahay lahjad kasta, dhigmo iyo dhawaaqba. yacni ma jiro afka Soomaaligu lahjad gaara oo la odhan karo lahjadaasaa hogaamisa, laakiin lahjadu iyaga ah qaar sidooda u kala baxay, midba dhawaaqa ay dhan u jiidata laakiin aan khusaynin afka jiritaankiisa. afka Soomaaligu wuxuu ku jira afafka ugu horumarsan naxwe iyo nuxur ahaanba. buuggan haddaba aanu ka samaynay wuxuu ka kooban yahay qaybo kala madax bannaan oo midba ay si u sifaynaysa ama midba daraasad gaara ay ka hadlayso. haddaynu si kooban uga hadalno waa 6 qaybood oo
mid waliba sideeda ay u jirto laakiin aan isku shaqo lahayn. qaybta ugu horeysa oo ila bixinta dhawaaqyada ah waa waxaan ay afafka kale ama cilmibiyada adduunka lagu yidhaahdo phonetics and phonology studieska, oo ah dhawaaqyada afafka ku jira iyo af walba dhawaaqyada ku jira iyo sumadaha sida loogu habeeyo iyo waxyaaba caynkaas. qaybta labaad oo isirgaraadaynta naxwaha oo morphology studieska ah. qaybta saddexaad oo xilligaraadaynta naxwaha anli oo ah tenses and time concepts. waxaanu sharaxan u raacinaynaa afka ingiriisiga ah si aynu isu fahno, maadaama ayna af soomaaliga ku lahayn waxay naga dhexeeya ama erey bixin dhexa oo aynu isla garan karno si aynu bal isula qabsano. qaybta afraad oo naxwaha xubnaha naxwaha hadalka waa parts of speechka waxaan la yidhaahdo, oo ah qaybaha uu hadalka u kala baxo. qaybta shanaad oo ah godadka weedha naxwaha waa syntaxka, waa qaybta ka hadasha sida ay ereyadu isu dabagalaan marka ay weer samaynayaan ama ay keenayaan fahan ee af waliba si u dhigo. qaybtan kale lixaad waa hibooyinka afka soomaaliga. haddaynu ku horeyno qaybta labaad, afraad, shanaad iyo lixaad ayaynu waxoogaa si gaagaaban uga hadli doonaa, inagoo kolleyba qaybta koowaad oo ta u muhiimsan ee dhawaaqyada iyo sumadaha aynu leenahay iyo kuwaynu adeegsana iyo siday u jiraanba aynu ka hadli doono. sawirkan aynu arkaynaa waxa weeyaan buuggii aanu ka samaynay cilmi baadhistaas